بارتي نظارة يا نو تلفك نقدر ميل أسكر بينهم بس نحدم أخوه اللي نقدم هاي صح يعني أسكر تيجي له هذا لو كاسر تيجي استاف خلق الريبة دايم لا بالله واسمر وين السلامين هلا قالوا لنا السلام ergayga gaarka ah ee qaramada midowga qaabilsan arrimaha Somalia UN Neclos Kay ayaa kulan aad u ballaaran la qaatay isimada Puntland ee gobolka Mudug sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali madaxa xafiiska siyaasadda ee qaramada midowga ee Soomaaliya Neclos Kay oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu kulan la yeeshay isimada Puntland ee Thank you very much indeed, and Assalamu alaikum. First, let me say really thank you very much for receiving our delegation today, and thank you for coming to the meeting. And also my sincere apologies that we are late and we kept changing the time. aad ugu mahadinayaa in ay timaadeen waxaan ka cudur daaranayaa inaan ka soo daahay barnaamijkeena oo isbedelay maarta anagoo markii hore waanshayna soo daahnay awgeed. And I should begin by introducing our team that has come with me today. I am Neclos Kay, the Special Representative of the Secretary General of the United Nations for Somalia. kadib ayaa kulanka dibadda saxaafadda looga soo saaray waxaana ila lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijiyeen in kulankaasi wanaagsan iyo isafgarad uu ku soo dhamaaday waxaana sidoo kale naloo cadeeyay in laga wada hadlay oo la isku afgartay afar qodob oo kala ah kow in doorashada Puntland ay qabsoonto 8 January 2014 aysan wax dib u dhac ku iman labo in guddiga khilaafaadka uu noqdo mid la isku wada waafaqsan yahay lagana wada xilligiisana la joogo oo la qaban lahaa saddex in la dedejiyo dhamaystirka xulitaanka baarlamaanka uu noqdana xubno tayo iyo aqoon u leh afar in amniga Puntland si wada jira looga wada shaqeeyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali telefishinka caalamiga ee Somali Channel gaalkacyo